shaqo wanaagsan naftaada leedishe maxaa tani waa marin aad u weyn oo isbedeli kara waqti kasta qof kasta oo ku xaniban gudaha waxa uu joogay 3 sano mana jiro qof weligiis helay waddo uu kaga baxo fiid kasta albaabada dhagaxa ahi si xoog leh ayay u xirmaan mana furmaan mar kale ilaa subaxda xigta mana jiro qof weligiis ka badbaaday habeen gudaheeda sababtoo ah marka albaabadaasi xirmaan makhluuqaadku way soo baxaan oo meesha ayay la wareegaan markaa Thomas iyo Minho ma lahayn doorasho kale ee waxay qaadeen saaxiibkood daawacan waxayna isku dayeen inay helaan meel ay ku dhuntaan kadib qaylo cabsi leh ayaa ka yeertay meel fog eelku si degdeg ah ayuu u madoobaanayay ilbiriqsi Thomas waxa uu arkay geedo canab u eg meel u dhow wuxuuna helay fikrad waxay u adeegsadeen inay albi kor uga qaadaan dhulka oo ay hawada ku sii hayaan isaga oo laalaada si lama filaan ah darbiyadii ayaa bilaabay inay gariiraan hoos weyn ayaa ka muuqday meel aan fogeyn Minho si buuxda ayuu u argagaxay wuuna cararay isagoo wax walba tuuray kana tegay Thomas isagoo aan lahayn wax kale oo uu sameeyo Thomas waxa uu isku dhex qariyay geedaha canabka ah wuxuuna isku dayay inuu si buuxda u aamuso kadib waxa uu ekaa weligiis oo dhan dabadeed makhluuqa ugu dambayn uu dhaqaaqay oo ka tegay si degdeg ah ayuu u hubiyey in albeesi adag loo xiray si uusan u dhicin laakiin isla markii uu dibadda u soo baxay bur yar oo wasakh leh ayaa si toos ah uga daatay garabkiisa wixii uu arkay xiga waxay ku rideen orod cabsi buuxda laakiin ma uusan aqoon qaabka meesha wuxuuna si toos ah ugu orday meel aan marin lahayn isagoo si degdeg ah u fikiraya ayuu dhagaxyada dhulka u adeegsaday meel uu cagaha saaro wuxuu qabsaday geedaha canabka ee derbiga dhagaxa wuxuuna bilaabay inuu fuulo sida ugu dhaqsaha badan ee uu kari karo Thomas wuxuu isticmaalay geedaha canabka si uu makhluuqa u xayiro muddo gaaban Minho oo maqlay buuqa ayaa dib u soo laabtay isagoo adeegsanaya aqoontiisa labirintka ayuu Minho Thomas ku hogaamiyey marinada qorshihiisu wuxuu ahaa inuu isticmaalo derbiyada dhagaxa ee xirmaya si uu makhluuqa uga lumiyo raadkooda Minho wuxuu ku gudbay waqtigii saxda ahaa laakiin Thomas si lama filaan ah ayuu u istaagay Thomas ma sugaysa soo orod soo shido kale صورت توماس قدرها فيرن صورت توماس صورت اسكو دينا استيد حوارها وكدر صورت ولا صورت وكو سربا subaxdii xigtay albaabadii dhagaxa ahaa ee waaweynaa mar kale ayay furmeen laakiin marinka dhexdiisa gebi ahaanba wuu madhnaa dadku waxay u qaateen in dhammaantood dinteen markii ay dadku quus gaadheen oo ay bilaabeen inay ka baxaan Thomas iyo Minho ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday meel aan la filayn waxayna la soo noqdeen saaxiibkood oo dhaawac ah dadkii oo dhan way yaabeen sababtoo ah tan iyo maalintii halkaas lagu soo tuuray qofna weligii ma uusan ka badbaadin habeen ku dhex jira masaka laakiin Thomas keliya ma badbaadin wuxuu sidoo kale markii ugu horreysay dilay makhluuq ka mid ah kuwa halkaas ku jira dadku waxay bilaabeen inay dareemaan wax aysan muddo dheer dareemin rajo laakiin Gali aad buu u carooday waxa uu dareemayay in 3 sano ay ku noolaayeen si ay ula qabsadaan makhluuqaadka bannaanka ku jira inkastoo aysan weli helin waddo ay uga baxaan haddana waxay dhisteen xero waxayna beeran jireen cunto oo ay naftooda ku maareeyaan hadda Thomas ayaa dilay mid ka mid ah makhluuqaadkaas taas oo wax walba khalkhal gelisay waxaana jiray inaysan ahayn hal makhluuq oo keliya bannaanka idina ma ogeyn waxa xiga ee dhici doona Gali wuxuu ku adkaystay in Thomas la ciqaabo Minho ayaa istaagay si uu u difaaco laakiin ka hor inta uusan hadalkiisa dhamaysan cod aad u xoog badan ayaa meel u dhow ka dhacay qof walba ayaa u orday si uu arko waxa dhacay waxayna halkaas ka heleen gabar jiifta waxay gacanta ku haysay shay yar waa tii ugu dambaysay ee la keenay sida dadka kale oo dhan oo halkaas yimid dhammaantood si isku mid ah ayaa loo soo tuuray mid walbana xasuustiisa waa laga qaaday iyagoo la haray cabsi iyo jahawareer gabadhii waxay si lama filaan ah u furtay indhaha waxayna ugu yeertay Thomas magaciisa ka hor inta aysan mar kale suuxin waxaa si cad u muuqatay in waxa dhacaya ay si uun ula xiriiraan Thomas kadib Thomas wuxuu la galay kooxda masaka waxayna heleen haraadiga makhluuqa ay dileen waxay ka soo saareen qayb farsamo oo aan caadi ahayn oo jirkiisa ku jirtay waxaana si cad ugu qornaa lambarka 7 idina ma garanayn waxa uu ka dhigan yahay markii ay xerada ku noqdeen Minho wuxuu Thomas geeyey qol yar oo alwaax ah waxa uu ka qaaday maro miis saaran wuxuuna muujiyey khariidad faahfaahsan oo masaka oo dhan ah
Minho iyo kuwa kale waxay 3 sano ku qaateen inay si buuxda u sahamiyaan Masaka, laakiin weli ma helin wado ay uga baxaan. Waxay ogaadeen in Masaku uu lahaa 8 qaybood oo dibadda ah, mid walbana uu hayay makhluuq. Habeen kasta marka Masaku isbedelo, hal qayb ayaa furanta, taasoo sii daysa makhluuqa gudaha u soo galaya. Habeenkii ay dhibaatadu dhacday, qaybta 7 ayaa ahayd tii furantay. Qalabkii laga soo qaaday makhluuqa wuxuu noqon karaa furaha albaabkaas. Dhanka kale, gabadhii way soo toostay, waxayna diiday in qof kale u dhowaado marka laga reebo Thomas. Magaceedu wuxuu ahaa Teresa. Waxay siisay Thomas 2 dhalo oo daawo ah oo ay sidatay, laakiin midkoodna ma garanayn waxa ay yihiin. Thomas wuxuu si lama filaan ah u xasuustay Albi oo uu qaniinay makhluuqu, wuxuuna u arkay in laga yaabo inay daawo yihiin. Wuxuu si degdeg ah ugu duray Albi isaga oo aan ka labalabayn. Maalintii xigtay, Thomas iyo Minho waxay mar kale galeen Masaka, iyagoo raadinaya wado ay uga baxaan. Waxay si degdeg ah u gaareen qaybta 7, halkaas oo qalabkii ay wateen uu bilaabay inuu sameeyo cod aan caadi ahayn. Waxay raaceen codkaas ilaa ay gaareen meel aysan hore u arag. Codkii wuu sii xoogaystay ilaa ay gaareen dhammaadka wadada kadibna. filimkeen wuxuu dhammaanayaa adigoo yaaban. filimka magaciisa waxaa la The Maze Runner. hadda waxaan ii soo koobay season 1. hordhowna waxaan ii soo dhigi doonaa season 2. fadlan waleysa amrag youtube-keena Shakra Film subscribe dheh, gambaleelka fura, muuqaalkana like saar, siina share gare.